السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحبدا walaalaha axbaabta janalkan ku xiran soo dhawaada walaalkiina miskiinka alle Munir janalka aad iga daawanaysan oo Munir Mercy axbaabi maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo muuqaal aan u arkay inuu muhiim yahay oo aniga iyo idinka ka faa'iideysan doontaan insha Allah muuqaalka wuxuu yahay waxaan rabaa inaan idin sheego ama idin soo gudbiyo mowduuc waxyaabaha shaydaanka la isaga ilaaliyo يعني لح شيء أيان كسو قادنينا أذي أبديهين وحيابها شيطانك يعني لسريع إلى عليه ومهم وأخوف كمسلم كأه محايلة شيطانك وحكم دي هاي أضومها إلهي يعني إلها أبوري نوع جنيه كم ذا واي إبليس أقوين حدنا يعني وعاسي واللي بعاسي نميس لجاري وإلهي سبحانه وتعالى كو عاسي أمركيس ديدي مرك إلهي سبحانه وتعالى وحنوش يجي إنان عاسيغاس رجيم كأه إلهي سبحانه وتعالى جنديس كسو إريي إلهي سبحانه وتعالى أمركيس الديدي إنان يعني أدعين إنان إسك إلالينو إن يعني أن أهيسونو عدو واللي بأن قرآنك وحكوت المامي عدو عد يعني عدو مبين مركز شيطان كاس وإلهي سبحانه وتعالى يعني كو عاسيي أناقا إلهي سبحانه وتعالى نوغ ديغي ayaa la rabaa in la iska ilaaliyo oo intii laga doorsan karo oo maxaa la lahaa talaabooyinka uu ku farayo iyo waxyaabaha xumaanta uu ku farayo in la iska ilaaliyo la rabaa waxyaabaha marka laga doorsan karo la isaga ilaalin karo shaydaanka ayaan rabaa inaan waxyaabo qaar kood idin sheego maxaa yeelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu noo sheegay inuu cadow nagu yahay markuu noo sheegay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku caasiyay shaydaankaas markuu noo sheegay in jannada laga soo eriyay markii noo sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala in shaydaanku iblis uu cadow cad ku yahay bini aadamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo kale wuxuu noo sheegay waxyaabo oo hadii aan sameeyno shaydaanka aan iska burin karno oo markaas wax saameena ama wax dhibaato noo geysan karin hadhowna tilaabooyinkiisa wixii xumaanta uu nafarayna inaan qaadanaynin markaas tilaabooyinka waxyaabahaas aan rabaa inaan maanta ka hadlo waxyaabahaas waxa ugu horeeya marka hore هدي عرفت الشيطان كنا اسكي إريدو أو اسكي إلاليسو إلهي كم غنقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له محايا لي إلهي سبحانه وتعالى أو كم غنقشو أو كعوذ أتي أتكعوذ بالهيستو شيطانك وكاعر الرياء أو كومسو دوانايو طلبات وحين نقول نساء أقري معوذتينك لابد صورات القرآن كوقدم بيسو برب الفلق يبرب الناس هدي أد أخرسو شيطان كومسو دوانايو أو كاعر الرياء marba hadii quraanka akhrisay oo labadaas aayado suuradood shaydaan uu ka cararaya tan saddexaad oo shaydaanka isaga eri kartid iskaga burin kartid oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga magan gali kartid waa aayatul kursi hadii aad aayatul kursi akhriso shaydaanku ma soo dhawaanayo waa ka carara ama shaydaanka waa iska ilaalisay tan afraad suuratul baqara ina akhriso suuratul baqara oo dhameystira ina akhriso hadii aad suuratul baqara akhriso شيطان واسك إلاليسي أو كومسو دوانا يولي قريها هدي لغو أخري سورة البقرة أو سورة أبو دير قرآنك لو جوس يحوغا أيك كوبان تاي هدي سورة داس أخريسو شيطان واسك إلاليسي سيدو كالي سورة داس لابد آيات أبو دنبيو هدي أخريسو سيدو كالي أما آياتها أبو دنبيو شيطان واسك إلاليسي تنشانات وحين نقونيسا إنا أخريسو أذكارتان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أذكارتا صديق أخرسه شيطان كومسو دواناي واسك إلاليسي أذن مدة أغضن بيسو تنلحادة وحين نقول يساوي بدينهين لكن أنا سو كوبي أو وحين نقول يا وحيابها شيطانك أما أصبابها شيطانك أساقي إلالين كرتيد إن أدبادسو حسك إلهي وليبا أساء هو ناكسن حسك هو وحي أنصو شغنيدن وحسك إلهي آيضا حديث عدينايو فضلك إليه إن شيطانك لساق إلالين كرو وأسباب أو نقنيسو إن شيطانك وصن كوسو دوان أي أهد وقرآنك أي كمد أهايين أو كمد أهايين قاركود أذكار أهد تيد هاد وقدم بيسو كالشانات ولا إله إلا الله وحده لا شريك لها مركا دي آد لحظان أخرس آد سميسو شيطانك وأسك إلالين سا وحا وقدم بيسي ذكرك إلهي يحسك إلهي إنا بدسو محايا لي ميل إلهي حسكي سلوها هايو وأدكتها يقف شيطان إنه أسوء دواده هدو قفك مرة بإلهي حسايو أما قرآن ها أخريو أما أذكار ها أخريو
ama qalbiga ilaahay subxaana wa tacaala ha ka xuso shaydaan uma soo dhawaanayo oo yani wuu ka fogaanayaa. oo maxaa yeelay shaydaanka waa cadow, cadowgana waxaa wanaagsan in yani laga gaashaanto oo hub loo qaato. hubka ugu weyn oo shaydaan lisaga ilaalin karana waa dikriga ilaahay, xuska ilaahay iyo 6dii shay aan soo sheegnay. waxaan arkaynaa dad badan oo yani dhibaatooyin qalbiga ah haysta, dad badan oo salaadihii aan ku toosnayn, dad badan oo jecel inay cibaadaystaan laakiin yani naftooda iyo shaydaan oo ka adkaaday. maxay tahay sababta? maxaa yeelay sababihii shaydaanka lisaga ilaalinayay ayay ka tageen. يعني ما أخرستان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 6 شيء أن صار شيء لبض سورة القرآن كأوجدن به وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ما كأخرستان شيطانك آية كرسي كما أخرستان سورة البقرة كما أخرستان يعني سورة البقرة رمات كده سيدو كله كما أخرستان شيطانك وحاس إن سبب أي نقول لهاد إن شيطانك يعني كدر صدان أو شيطان أصلا أصلا دوانين هذون إلهي سبحانه وتعالى عبادتي سيء عملك وناكسن يكون دالي لهايين سيدو كلا ما أخرستانكم مد دالان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إيو ذكر إلهي سبحانه وتعالى قفك مركو ذكر إلهي حسك إلهي وكفق هذا وكجوره يعني ونقولنا يا قف مركز شيطان جايكو وكجيره يعني قف أو مر والباء وحتى هدي نيدي سيء وناكسن تهي يعني أن أعماشي قول أم فعلك أن لإيمان كرين أيو نقولها شيطان كمركا وإن آذان راعين تلابوين كيسا إيو حيابها وكو شيغايو ولما شيطانك أسايو حمان بس أيو كفرا فقري وكفرا وحن زينو إيو معسي إنا إلهي كو عاسسو إن يعني وحي لغو أبو رأي وعبادة أهيد أكفقاتو كليا أيو كفريا ومر والباو حكوكو مشغولين يا يعني وحيابها أنوناكسنين وأذيك دان أنكو جرين الدنيا آخرة هدونو مركو حصول عيسى هدو ميل بنانا وقتها كوكو دمانايو وادمانيسا هدونا قبرغا حسابتي ويحي دان وكو دعيسا يعني سيراتكي ويحي دان كدبنا يعني ميل حنا كو دنبينيسا وهدو شيطانكي لربي إنا اسكي إلاليسو وإلهي سبحانه وتعالى حقيسا أجيسا كدب أي هدو نارتكو وخد بين دونو ووحوكو ليهاي أنيغا إيدين إنفتا إيد هدي أد هاد علماء مقشو oo aad yani ka fiirsato ficilada aad hadda sameynayso oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xuskiisa iyo cibaadadii camalka wanaagsan aad ku dadaasho hadhow jannada ayaa rafiiq kula noqonaysaa nabiga kaleey salaam nabiyada iyo maxal laha mashaayikhda iyo dhamaan dadka wanaagsan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsan jiray. marka waa muhiim inaan asbaabtan la imaano oo isaga ilaalino shaydaanka hadii aan u baahannahay inaan shaydaanka iska ilaalino 6 shay aan ku dadaalno Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu shaydaan yani naga xoreeyo oo markaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan dhikrigiisa iyo xuskiisa aan shaydaanka kaga magan galno oo yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan magan gali weydiisano hadhow shaydaan nooma soo dhawaanayo. waxaan rajaynayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala na waafajiyo 6 shay aan ka soo hadlay. waa maasantiin daawashada muuqaalkan soo dhawaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.